بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 670 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الحديث: وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. متفق عليه. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 9kii bishii 11aad dulqicda ee sanadka 1446 isla markaana waafaqsan 7dii bishii shanaad sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunan nabawiya wa ziyaadaatuhu. ayaanu ku jiray khaasatan nicma almaalu saalix lirajulin lilmar'i saalix. waxaa nicmo leh maal qiimo badan ama maalka fiican ee xalaasha ah ee loogu talagalay meeshii loogu talagalay lagu bixiyo, wuxuuna maartay nicmo u yahay qofka maartay saalix ayuu u fiican yahay. nicma almaalu saalix lilmar'i saalix. kaasaanu ku jiray mawduuca xooluhu qiimaha maalku qiimaha uu leeyahay haddii 2 shardi laga helo, haddii ama 3 shardi laga helo. qodobka koobaad in meel fiican laga kasbo, qodobka labaadna in meel fiican lagu bixiyo, qodobka saddexaadna uu nin saalix oo taqi ah uu gacanta u galo. idan wuxuu noqonayaa nicma aad u qiimo badan buu noqonayaa. xadiidkeennan bukhaari iyo muslim baa soo saaray, iyo axmed bin xambal musnadkiisa, iyo nasaa'i, ibnu maajah iyo keyrkoodba. waa xadiid dheer laakiin waan soo gaabinayo intaan oga maartay ulajeedada ayaanu ka soo qaadanay. waxaan ka raaligelinayaa shalay oo talaadaheed uu naga baaqday. maanta qudhigeedu waxa weeyaan degdeg baa nugu jira, marka waan ka gaadhsiinaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. intaa kadib xadiidka nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, asagoo saxaabadiisa la hadlahaya ayaa wuxuu ku yidhi: inamaa akhaafu, waxaan baqi buu nabigu calaykum korkiina, waxaan inaga cabsanhayaa min bacdi gadaashayda maa shay yuftaxu la furayo calaykum korkiina oo min zahrati dunya, adduunye dhaldhalaalkeeda iyo wasiinatiha quruxdeeda. taasaan idin baqahayaa buu idinka baqahaya. bimacnaa faqriga hadda aad ku jirtaan waxaan waad ka baxaysaa. faqri inaad u dhimataan kama baqayo, ee waxaan ka cabsan futuuxaad badan iyo wax badan intuu ilaahay idiin furo oo dhulal badan aad furataan oo islaam ku faafo, inay adduunyadii halkaa idinku soo fakato oo maaragtay halkaa sidii maaragtay daad fatahay idinku soo baxdo. dhaldhalaalka zahrati dunya wasiinatiha. zahradu waa zuhuur, waa maaragtay waa ubax wey, dhaldhalaal wey. ziinaduna waa quruxdeedii wey, waa isku cadfu tafsiir baa layihahdaa. marka nabigu wuxuu yihi waxaan ka cabsan, inamaa akhaafu, waxaan baqi calaykum korkiina min bacdi gadaashayda waxaan idinka cabsanhayaa maa shay baan idinka cabsan yuftaxu la furi doono calaykum korkiina oo min zahrati dunya wasiinatiha, adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda waxaa lidiin furi doonaan aad oga baqahaya inay dad badan ay mashquuliso daacada ilaahay iyo khayrkii iyo wanaaggii iyo waxaad u degdegayseen iyo waxaasoo dhan iyo aakhiro inay idinka mashquuliso. alxadiid waxaa ku jiray marka xadiidka: wa ina haada almaala, maalkan oo kana, khadiratun waa midoo cagaaran wey, xulwatun midoo macaan oo dhadhan fiican wey. maalkii baa lagu shabahay cagaar. cagaarku indhuhu u roon yahay, halaawaduna carabkay u roonta, marka dhadhankuna carabku u roon yahay. maalkana wuxuu u roon yahay maaragtay cagaarkuna indhuhu u roon yahay, macaankuna carabku u roon yahay. marka adduunyadii taasaa laga soo qaaday, mid indhaha u roon carabkana u macaan wey. wa ina haada almaala, maalkan oo kana, khadiratun midoo cagaaran wey oo indhaha u roon, xulwatun midoo macaan wey. macnaheedu waa shay maxbuuba. xooluhu oo adduunyada waa shay aad u jeceshiin oo aad loo jecel yahay. wa nicma, waxaa nicmo leh saaxibu lmuslimi, muslim saaxiibkii waxaa u nimca leh huwa maalka. maal baa u nimca leh. saaxiib muslim saaxiibkii maal baa u nicmo leh.
goormu nicmo u yeelan liman buu nicmo u yahay acdaahu bixiya huwa maalkiiya almiskiina miskiinka siiya iyo walyatiima agoonka siiya iyo wabna sabiili qofka musaafirkaa siiya kaasuu nicmo u yahay maalku faman akhadahu ninkii qaata maalka bixaqihi xaqiisa ku qaada oo xuquuqdu maartay xaqiisa ku qaada oo wawadacahu deji meel fiican ka kasbada oo wawadacahu dejiya fii xaqihi xaqiisa dejiya oo meeshii loogu talagalay ku bixiya fa nicma waxaa nicmo leh almacuunatu kaalma maarta isagaa u nicmo leh almaqsuusu bilmadxi huwa wey fa nicma almacuunatu macuuno iyo kaalmo uu u nicmo leeyahay huwa maalkaas ama almaqsuusu huwa maalka ayaan maarta kaalmo ugu nicmo le wey waa ninkii xaqiisa ku qaada oo meesha loogu talagalayna dhiga weeye masaakiintii iyo awoommadii iyo musaafirkii iyo intii tabar yaroo dhan iyo muslimiintuu ku anfacaya fa nicma almacuuna macuuno iyo wax la kaalmaysta waxaa u nimcale huwa maalka u nimcale waman akhadahu ninkii laakiin qaata xoolaha bikayri xaqi xaqdaruu ku qaata jidkiisi jidaanayn buu ku qaata xaqdaruu ku qaata oo dhac iyo dulmi uu ku qaato way aan xalaal ahayn buu ka kasbaday kaana wuxuu ahaanayaa mana bixinin kaana wuxuu ahaanayaa kaladii qofkii oo kale yaakulu cuno oo walaa yashbac waan dhergayn ninka xoolaha xaqdarra ku qaata dulmi iyo wax lamida ku qaata kama dhergo kaladii kii oo kale uu noqonaya yaakulu cuno walaa yashbac waan dhergayn wayakuunu wuxuu noqonayaa maalkii calayhi korkiisa shahiidan makhraati yowma alqiyaama maalinka qiyaamada ana uu ku makhraati kacaya inuu dulmi ku soo qaaday meel aanan munaasab ahayna inuu ku bixiyey ayuu ku makhraati kacaya amaa haddii maalkii fiicnaa uu u makhraati kici shahiidan lahu buu u noqon makhraati maartayuu u noqonaya ikhwat alislaam walimaan xadiidkan xadiid cadiima weeye xadiidka waxaa ku jira wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan u baqahayaa buu yidhi idiin baqahayaa gadaashee markaan dhinto waxaa adduunyada lidiin furi doono iyo adduunyada lidinku maashayn doono ayaan aad iyo aad uga cabsanhayaa buu yidhi yaan idinku cabsana inay idin dhumiso waana sida qaalibka maalka qofka wuu dhumiyaa marka nabigu xadiid dheer buu sheegayo khayrka lama yimaado yidhi shar lama yimaado kadibna tusaaluu bixiyey adduunyada wuxuu ku shabahay xoolo dhul gariin oo cagaara la geeyo intii cagaarkii iska badiyeen ay dibireen oo calooshu dilaacday waana qofka maalka markaa qaabkaas ugu dhaqmo wey markaasaa nabigu wuxuu yidhi maalku waa cagaar waana macaan waa wax indhaha u roon carabkana u roon bimacnaa waa shay maxbuuba oo naftu ay jeceshahay bidabciha bay jeceshahay markaasaa nabigu wuxuu yidhi nicma saaxibulmuslimi nicma saaxibulmuslim muslim saaxiibkii baa nicmo leh kaasna waxa weeyaan oo la ammaanay huwa maalka weeyaan maal baa u nicmo leh qofka muslimka saaxiibtinimo laakiin waa kee waa liman acdaahu waa ninka maalka ku bixiya yani waa xadiidkii waa wadacahu fii xaqihi wey muxuu siinhayaa almiskiina miskiin buu siin walyatiima ayuu siin wabna sabiili buu siinhayaa masaakiintii iyo awjuhdii loogu talagalay buu ku bixinhayaa isbitaaluu dadka ugu dhishayaa ummaddiiba ugu khidmaynhayaa kaas wuxuu noqonayaa nicma saaxibulmuslim buu noqonayaa faman akhadahu ninkii xoolahaas ku qaata bixaqi waa xoolo ilaahay siiyey xaqeedii buu ku qaatay oo xaq darra maahan wuxuu u qaatay dariiqo si fiican buu ku kasbaday wawadacahu fii xaqihi meeshii loogu talagalayna dhiga fa nicma almacuunatu wax la kaalmaysto asagaa u nicmo leh huwa maalka u nicmo leh fa nicma waxaa nicmo leh almacuunatu kaalmo iyo wax la kaalmaysto nicmo leh almaqsuusu bilmadxi ka aad loo ammaanay huwa maalka weeyaan maalka ayaa u nicmo leh wax la kaalmaysta macuuno aad u qiimo badan weeye kaalmo aad u qiimo badan waman akhadahu laakiin ninkii qaata halkaa ikhwati filah wuxuu na tusinhayaa waa arrinta muhiimkan xadiidka oga soo qaadanaye kii horan buu la mid yahay nicma almaalu saalix lilmarci saalix wey ama laa ba'sa bilghina liman ittaqaa haninimadku iyo maalqabeenimadku wax dhibaato ama leh haddii qof taqi ay gacanta u galo leanna meesha loogu talagalay buu ku bixinhayaa xadiidkii kala lamid aha
ninkii ilaahay subxaana wa tacaala maal iyo xoolo ilaahay iskugu cilmi iyo maal iskugu daro oo maaragtay qaraabada ka xidhiidhiya oo rabbigii ooga baqa oo xuquuqda ilaahay uu ku leeyahay ogaada fahuwa maaragtay fahada afdalu lmanaazil waa kii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam darajaadka midka ugu sarraysa wey idan maalku sidiisa madmuum ma ahe ma xumee waa kolba qaabka loo isticmaalo iyo cidda haysata wey shar hadduu isticmaalana wuxuu noqonayaa qof shar badan oo halaag buu maalka ku ridaya hadduu wanaag u isticmaalana wuxuu noqonayaa qofka dadka ugu qiimo badan cabdiraxmaan bin cawf iyo cuthmaan bin cafaan iyo rag fara badanoo saxaabada milyan dheere ahaayeen ayagoo milyan dheerahaasoo casharatu mubasharuuna biljanna lagu maarta jannada kuwii lagu bishaareeyey ka mid noqdeen maalkooda waxba ma yeelin bal wuxuu u horseeday inay darajo sare ay ku gaadhaan idan maalku qofka maaragtay si xalaalana ku kasbada meesha ilaahay ugu talagalayna ku bixiya nicmal maal buu noqonayaa nicmal maal ayuu noqonayaa marka nabigu wuxuu yidhi wa nicma saaxibu lmuslimi muslim saaxiibkii baa nicmo leh huwa maal baa u nicmo leh liman acطaahu qofka bixiyuun u nicmo leh miskiinka siiya almiskiina walyatiima wabna sabiil siiya walyatiima wabna sabiili siiya faman akhadahu ninkii qaata bixaqihi ku qaada oo dariiqo fiican ka kasbada oo wadacahu dejiya fii xaqihi xaqiisana mariya zakada ka bixiya masaakiinta ka quudiya fa nicma almacuunatu kaalmo asagaa u nicmo leh huwa maalka laakiin masiibadu waxaa weye waman akhadahu ninkii qaatay bigayri xaqihi xaqdaruu ku qaatay wuxuuse xaq u lahayn buu qaatay dariiqadii iyo meeshii loogu talagalayna muuse marinin kaana wuxuu noqonayaa kaladii ya'kulu walaa yashbac qof wax cunhaya oona dhergaynin buu lamid noqonayaa waa ninka maalka xaaraamta haysa waad artay dadka ribada iyo xaaraamta iyo laaluushka qaata meel ay wax mariyaan garan mayse indhaha maysauta way baahan yihiin malaayiin baana soo maraysa waa baahan yahay iigu soo dar ii kordhi isii unbuu kusii haynaya limaada lianna maalahu xaraam maalkiisa xaaraam ahaa meelaan saxayna wuu ka kasbaday kaana kaladii ya'kulu walaa yashbac intaa waxaa sii dheer wayakuunu calayhi shahiidan yowma alqiyaama xoolahana aakhiro way ku makhraati kacahayaan saasuu maarata meesha aana ficnayn buu iga keenay meesha aan ficnayn buu igu bixiyey sidaasuu leeyahay marka ciqaab buu ku noqonaya amaa maalka fiican aakhiro wuxuu noqonayaa shahiidan lahu buu u noqonaya wuu makhraati kici isagaa u makhraati kacaya idan ikhwatii fillahi nin kasta wixii ilaahay ku siiyey kow horta meel fiican ka kasbo oo xaaraam ha ka kasbanin lambar laba wixii aad ka bixin karti iyo wixii aad wanaag aad ku samayn kartina ku samee si uu makhraati kugu noqdo oo ugu guulaysati una noqdo nicma almaalu saalix lilmar'i saalix iska ilaali inuu maalkaadu aakhiro kugu makhraati kaco ciqaab uu kugu noqdo ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa nadsonuun irsaaqa xaqa raacitaankiisa hal mar baan xadiidka lafdigiisa akrinhayaa الحديث 670 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها الحديث وفيه وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة متفق عليه هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.